بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي حسن محمد آدن waxaan ku magac dhalay Xasan Taylan kulli waxay ku wanaagsan tahay in la isbaraarujiyo baraarujintaas oo ku saabsan waxaan ka jira caalamka maanta ee ka dhacaya runaantii dadka aqoonta u leh ayuu ba fahmaya waxaan dhacaya dadka laakiin aan aqoonta u lahayn waxay u baahan in la siiyo health education waxa la yiraahdo ama baraarujin xanuunkan la yiraahdo coronavirus ilaahay nabadgeliye waa xanuun معناها فيروس كدشا كيمادا حيوان كاي اللي يدو حتى اساس اي جيرين بس comes from animal to the human فيروس كيمادا وين سن اوغنahay xanuun sinu aafay dunida kan ka hor mujir maanta todobadii qaaradood meel aan ku dhicin ma jirto xanuunka coronavirus waxa taa maxaa tahay coronavirus waa ilaa ma aragtay shayb ahaan marka microscope lagu eego waxa uu eegay crown afka Ingiriisiga ama afka qalaad waxa lagu yiraahdaa baasha taajka boqortooyada ay xidhan baa la yiraahdaa crown taajkaas marka microscope lagu eego viruskan ayaa wuxuu eegay taajka crown dadana maadaama crown loo bixiyay crown ayuu ka yimid corona halkaas uu ka yimid shayb ahaan lixdankii baa la qoonsaday xanuunkan la yiraahdo corona lixdankii baa la qoonsaday injiro balse wax talaala ma leh wax immunization oo lagu talaali karo xanuunkan ma jiro wuxuu leeyahay wacyigelin oo kaliya adduunka oo dhan waad arkaysaan maanta maadaama adduunka oo dhan saas uga jiro inaguna inuu iska ilaalino calaamadihiisa hadda maxaa lagu gartaa coronavirus calaamadihiisu waa maxay coronavirus calaamadihiisu waa fever xumad cough magarasa qufac waxaan abaaraa upper respiratory ama neefsashada sababada oo qofka naqaska ayaa qabanaya sadarteed markuu qofku naqaska ku xidho ayaaba magarasa keenaya in markaas dhinto ama uu istaago ama shaqeyn waayo neefsashada coronavirus waxa laga hortagi karaa kaliya in bulshada wacyi la gelinayo saan imka riwaayadan aan ugu baraarujinayno oo kale in bulshada lagu baraarujiyo oo dadka aan ogeyn ama dadka aan wax aqoon u lahayn media laga tuso wuxuu yahay halku ka yimid sida loo kala qaado waxaana lagu kala qaadi karaa taabashada maxay ahayd neefsashada meelaha suuliyada iyo la wada galo waxa lagu qaadi karaa meelaha la isku yimaado bulshadu ka isku timaado ay ku wareysato isku wareystaan markaas kale waa lagu kala qaadi karaa marka waxa loo baahan yahay in la iska ilaaliyo meelaha la isku imanayo sida goobaha habeenkii lagu intaas waa hordhac insha Allah waxyaabaha dambana waxaan ku soo gudbi doonaa bartayada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.